السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Macalin Maxamuud casharkan waxaynu ku qaadanay 10kan erey meesha noo saaran ereyga koowaad accord waa heshiis ama agreement accord consensus dhammaantood waxa waayo heshiis. For example, the two countries reached an accord on trade policies, yani agreement bay ka gaareen yani policy ku saabsan ganacsiga. Yes, there was no accord in the meeting, so decision was delayed. Wax heshiis ma aanu jirin shirka, go'aankana dib baa loo dhigay. Address loo macno uu leeyahay. Address waa u dhawaaqi kartaa, address ma u dhawaaqi kartaa. Haddii aad address ugu dhawaaqdid oo qaybta hore aad xooga saartid, address waa qofka cinwaankiisa ama meesha uu degan yahay. Yes, for example, this is my home address. waa kanaan ciwaanka gurigayga ama meesha aan deganahay. Address haddii la dhaho xagga dambe syllabuska dambe la saaro culeyskana waa inaad dadku wax u sheegtid, dadku wax u soo gudbisid. Aadiyaad to speak to. For example, the teacher will address the issue of bullying tomorrow. Macalinka ayaa ka hadli doono waxyaalaha bullying ku saabsan berito. Sumaarayst. Marka ciwaanna waa dhigi kartaa, dadka inaad hor istaagtid wax u sheegtid waa dhigi kartaa. Adverse waa daran. Yes, adverse waa wax daran. Aadiyaad. Ereyga afraad advocate waa u doodid. Tusaale qofkan waxa uu u doodaa waxa kani. He advocates for clean energy ama clean water. Wuxuu u doodaa support gareeya yani xuquuqdooda u dagaalama dadka inay helaan clean water biyo nadiif ah. Yes, advocate waxa kaloo la yiraahdaa qareen ama qofka maxay abukaata maxkamadda kugu doodo. For example, they hired an advocate to help with their case. Qareen bay qabsadeen si uu uga caawiyo keeskooda. Affectionate waa marka qofka jacayl tusinaysid. Yes, affectionate. For example, she gave him an affectionate hug. Laabgelin galgacayl labayd. Affection marka waa jacayl, affectionate, that is when you are showing love. Qof marka jacayl tusinaysid. Ereyga lixaad ambiguous waa waxaan cadayn. Waxa marka inay cadayn saalo qof baa wuxuu siinaya instructionkaas ma cad ama jawaab uu siinaya jawaabtaas mid cad ma ahan. For example, waxaa leedahay stop giving me ambiguous answer. Ha isiinin jawaab aan cadayn. Ambiguous marka waxay isku macno noqonayaan unclear ama vague iyadan waxa waayo waxaanan cadayn. Yes. Ereyga toddobaad analogous waxa waayo u eg la barbar dhigi karo similar. Yes, for example, his problem asaga dhibaatooyinka haysto is analogous to mine in many ways. Midkayga u eegin waxyaalo fara badan. Marka similar iyo analogous baa isku mid ah. Ereyga sideedaad anchor waxaa la yiraahdaa yani bahal weyn, biraha weyn ee markabka yani labadiisa dhinac laga tuuro markuu badda ku jiro si uu markabka uga dhigo stable, inuusan dhinacan u dhicin dhinacan kalena u dhicin. Yes, anchor ayaa la yiraahdaa. Anonymous waa waxaan la aqoonin. Qof yani qofnimadiisa qariyay ama aan la aqoonin ayaa la yiraahdaa anonymous. Yes. Ereyga tobanaad burst waa dilaacid. Waxa kan waa dilaacin burst. Yes, for example, the balloon will burst. Buufinku dilaaci doona. Yes, burst marka waa dilaacitaankaas. Ashkan intaas ayuu ku eegay. Thank you for listening. God bless you and have a beautiful day. Bye bye.